Bismillahirrahmanirrahiim daawadayaal ku soo dhawaada qodobada YouTube channelka Xaqiiqsan Media. Qodobada ugu doorka roona waxaa ka mid ah baaqashada kulamada golaha shacabka oo joogto noqday xildhibaano kan iyo jabay imaatinka xarunta golaha shacabka. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu balanta ugu baxay Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda Kenya oo shuruud adag ku xirtay xiriir diblomaasi oo ay la samayso Somaliland. faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya qarax xooggan oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta oo la soo wareegtay xarun muddo sanadaha gacanta wasaaradda ka maqnaa iyo meydadka 15 qof oo ay ku jiraan 6 caruur oo laga helay goobaha qaraxyadii ay ka dhaceen ee dalka Sri Lanka. daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu doorka nool ee channelka Xaqiiqsan Media. Markana waxaad ku soo dhawaataan iyagoo faahfaahsan. iyadoo maanta xubnaha golaha shacabka ay u madalsanaayeen ka qaybgalka kulanka guud ee golaha shacabka ajandihiisuna uu ahaa akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka shirkadaha ganacsiga ayaa kooram la-aan waxa u baaqday kulankaasi. xildhibaanada golaha shacabka ee xaadira ayaa waxay gaarayaan 128 xildhibaan waxaana sida xeer hoosaadka golaha shacabka uu qorayo loo baahan yahay in 139 xildhibaan ay madasha goobjoog ka noqdaan marka la furayo kulamada xildhibaanada. inta badan xildhibaanadii maqnaa ayaa waxaa lagu eedeeyey inay aadeen ka qaybgalka xafladii xisbiga himilo qaran oo maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho loogu daafuray kaas oo uu hogaamiye ka yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo baaqashada kulanka kadib la hadla warbaahinta ayaa waxay nasiib daro ku tilmaameen kulamada joogtada ah ee golaha shacabka ee kooram la-aanta u baaqda. sidoo kale waxay tilmaameen in arrintaasi guddoonka golaha shacabka looga baahan yahay inuu dib u eegis ku sameeyo xeer hoosaadka sidoo kalena uu la xisaabtamo xildhibaanada golaha shacabka. kooramku waa uu buuxsami waaye ujeedka uu u buuxsami waaye ayaa ah mas-uuliyad daro iyo garasho la-aan xildhibaanada golaha shacabka ayuu yidhi mid ka mid a xildhibaanada golaha shacabka. xildhibaanada qaarkood ayaa guddoonka ku eedeeyay inay yihiin guddoon jilicsan oo aanan la xisaabtami karin xildhibaanada golaha shacabka. maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo diyaar u ahaa inuu shir guddoomiyo kulankii maanta ayaa waxa uu sheegay in kulanka uu u baaqda kooram la-aan sidoo kalena waxa uu digniin u diray xildhibaanada golaha shacabka. madaxweynihii dowladdii ku-meel gaarka aheyd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si kulul uga hadlay xaaladda guud ee dalka waxa uuna sheegay in dowladda hadda jirtay uu hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaysan mas-uuliyad badan iska saarin xaaladda dalka. dowladda dhexe ee Soomaaliya ayuu sidoo kale ku eedeeyey inaysan daacad ka ahayn dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo sidoo kale wax u qabashada shacabka Soomaaliyeed. shabaabkii aan shalay ka saarnay magaalada Muqdisho iyo goobo badan oo dalka ka mid ah in maantana la yidhaahdo dekedda magaalada Muqdisho ayay canshuur ka qaataan waxaas looma dulqaadan karo. dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaan ku garab istaagaynaa dagaalka ka dhana Al-Shabaab ayuu yidhi Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Sheekh Shariif ayaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay daacad ka noqoto wax u qabashada shacabka Soomaaliyeed iyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. waxa uu dowladda uu hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hordhigay inay cadeyso 3 qodob oo kala ah wax ka qabashada xaaladda amni ee dalka oo uu sheegay in meel fog laga keenay haddana amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka uu marayo meel hoose. sidoo kale waxa uu sheegay in looga baahan yahay dowladda Soomaaliya inay cadeyso dhamaystirka dastuurka ku-meel gaarka oo aan laga aqbalaynin in weli dalka uu lahaado dastuur ku-meel gaar ah. iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in dowladda Soomaaliya ay cadeyso nooca doorasho ee 2020. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale waxa ugu baaqay madaxda dowladda inay ka shaqeeyaan sidii amniga guud ee dalka gacan bira loogu qaban lahaa. dhanka kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladnimada Soomaaliya maanta ay marayso meel xun oo loo baahan yahay in si degdeg ah loo badbaadiyo. waxa uu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud in dowladda Soomaaliya ay caburin ku hayso siyaasiyiinta qaar ee ka aragti duwan awood sheegashada dowladda dhexe ee Soomaaliya ayuu sheegay inay tahay mid dalka sii burburinaysa sidoo kalena loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya dhinacyo badan ay ka fiiriso.
dalka hogaamiye xoog badan iyo shacab oo gacan bira lagu qabto afkana laga qabto waa tan 30 sano meelna dhigtay fidnadii ka dhalatayna cid walba ayaa garanaysa ayuu yiri xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda inay faraha kala baxaan arrimaha axsaabta siyaasadda dalka sidoo kalena ay ka daayaan caburinta dadka waa hadlayaan haddii laga hor istaagana si walba oo ay ahaato way isu tegayaan haddii qaranka wax kasoo horjeedo laga hadla qaran dumis ma ahan ayuu yiri xasan sheekh maxamuud daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan youtube-ka janalka xaqiiqsan media markana baydhabo guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed waxay ku qabteen 3 doorasho oo kala ah 3 kursi oo ka banaana kuraasta golaha shacabka musharax nuur siidow baaba xasan ayaa ku guuleystay kursigii xildhibaannimo ee beesha bagadi oo uu horey ugu geeriyooday allah u naxariistay xildhibaan korneel roosh nuur siidow ayaa helay codad gaaraya 48 cod halka musharaxa la tartamaya uu helay 1 cod 1 codna waa uu halaabay sida ay sheegeen guddiga doorashada sidoo kale cabdullaahi sheekh cali afgooye ayaa sidoo kale ku guuleystay doorasho kursi ka banaaneed golaha shacabka oo maanta lagu qabtay magaalada baydhabo 51 ergo oo hoolka doorashada fadhiday ayaa cod wada ogola ku doortay cali sheekh cabdullaahi waxaana musharaxii la tartamaya uu ku maqnaa sida guddiga ay sheegeen dalka Canada inkastoo uu buuxiyey shuruudihii looga baahnaa haddana wax cudurdaara ma uusan u soo gudbin guddiga sidaas ayaana doorashadiisa lagu qabtay kursiga ugu dambeeya ayaa ahaa kursigii uu baneeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen cali cadow maxamed ayaa ku guuleystay kursigaas kadib markii uu helay codad gaaraya 28 cod cabdicasiis cali macalin ayaa helay 16 cod shamso ibraahim maxamuud waxay heshay 4 cod 3 codna waa ay halaabeen sida ay sheegeen guddiga cali cadow maxamed ayaa si rasmi ah ugu guuleystay doorashadaasi waxaana maanta kadib uu si rasmi ah kaga mid noqonayaa xildhibaanada golaha shacabka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xarunta telefoonada dalka oo ku taala degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir wasiirka ayaa hadal kooban uu ka jeediyay gudaha xarunta ayaa waxa uu sheegay in ugu dambeyn bisha Juun ee soo socota 10keeda in dib u dhis lagu bilaabayo marka Soomaaliya ay ku soo bandhigaan hal abuurkooda la xiriira tiknoolajiyada qoysaskii ku harsanaa oo qayb ka ahaa dadkii ku noolaa dhismaha ayaa lagu amray inay si degdeg ah uga guuraan xarunta uu wasiirka la wareegay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa munaasabadii uu kula wareegayo maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale maamulka degmada Warta Nabadda wasaaradda boosada oo dib u soo celisay adeegyo badan oo lagu waayay burburkii dalka kadib ayaa maalmo ka hor waxay shaacisay in dib u dhis lagu bilaabayo xarunta macadka tababarada isgaarsiinta qaranka waxayna sidoo kale la soo wareegtay xarumo fara badan oo wasaaradda ay lahayd kuwaas oo burburkii kadib aanan helin wax dayactir ah isla wararka Soomaaliya ayaan ku guda jirnaa markana magaalada Muqdisho wararkaana ka helayno nawaaxiga hotel Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid waxa ay sheegayaan in qarax miino uu maanta ka dhacay laamiga hormara nawaaxiga hotel Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in qaraxaas ay ku dhaawacmeen dad shacab ah iyo sidoo kale askar ilaa iyo 3 ruux oo shacab ah ayaa waxaa ku waxyeeloobeen qaraxaasi sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka oo goobta gaaray ayaa waxa ay xaqiijiyeen in qaraxaasi uu ahaa miinada nooca lagu aaso dhulka sidoo kalena la dhigay laamiga dhinaceeda goobta qaraxa uu ka dhacay ee ku dhow hotel Tawfiiq ayaa waxa ay ka tirsan tahay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir waxaana halkaasi hadda ka wada howlgal ciidamada ammaanka ee degmada Yaaqshiid kuwaas oo baadigoobaya in ay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyay qaraxaasi miino ee ka dhacay hotel Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid ugu dambeynna dowladda Kenya ayaa waxay sahmin ugu jirtaa inay xiriir la yeeshaan Somaliland kadib markii ergey u magacooday xafiiska howlgalka Kenya Mission ee laga furi doono caasimada maamulka Somaliland ee Hargeysa
wargeyska The Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in dowladda Kenya ay ku biiri doonto dowladaha Itoobiya iyo Jabuuti oo xafiisyo diblomaasiyadeed ka furanaya Somaliland. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya waxay ergigooda Somaliland u magacaabeen ku sheegeen inuu xaqiijin doono wadahadallada Kenya iyo Somaliland dhex mari doona iyo sidii xiriirka labada dhinac loo xoojin lahaa. waxay sidoo kale ka wada hadlayaan labadaasi dhinac sidii loo xoojin lahaa xiriirka iskaashi ee dhanka ganacsiga ee u dhexeeya Somaliland iyo sidoo kale dowladda Kenya. daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii aad ka daawanayseen YouTube channelka Xaqiiqsan Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saas